الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مسؤولين حسبك هير قبل هير قرن يهير دقمو كلها وزيرة حويكا لما المسؤولين النوعية كالدوين حسبك كل مياه كان فردا لما أنتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحنا مراني هذا الكودي هاي waxaan isugu nimid munaasabadii maalintii dhaweyta daraato ee lagu soo daafurayay barnaamijkii siyaasadeed ee xisbiga kulmiye oo noqonayay kii afraad. barnaamijkaasna asbaabta ugu badan ee la heerka gobolka iyo degmooyinka sababayeen halkan la isugu yeedho waxa weeye barnaamijkaasi waa barnaamijka xudunta iyo lafdhabarka oo xusbi siyaasadeed uu gabi ahaantiisaba soo saaray kaasoo ahaa maalintii anigu halkii baan ka sheegay mala waxaan la helaynin xusbiyada maanta jira qaarna waa isku daaqaano waxba kama yarayn xusbi maanta keenaya afar buug oo barnaamij siyaasadeed oo xusbi maxaan ku dhahdaa ma jiro sida la ashligeed waxaynu doonaynaa xusbigan inuu noqdo midaan hadal iyo hungol lagu hogaaminin ee lagu hogaamiyo barnaamijyo siyaasadeed oo si cilmi leh oo maangalo loo dhigo kuwaasaynu maxaan ku dhahday aynu wadaynaa waxaana aynu doonaynaa marka caawa kulankan waxaynu ka dhiganay bacdamaa halkan waxaynu ku soo dhaweynaynaa mas-uuliyiinta baraasaabada xukuumadda iyo guddoomiyeyaasha gobolada ee xisbiga kulmiye ee dhammaan gobolada isaga yimi iyo mas-uuliyiintooda heerarka gobolka iyo degmada ay wada socdaan ayaynu inteennii reer hargeysana halkan aynu caawa ku soo dhaweynaynaayo aynu caawa cashadan halkan ugu socono wixii howlaha intaa ka dambeeya hawl shaqay noqonaysaa barnaamijyada ololaha waxaa lala tegayaa bay noqonaysaa howlahaas oo dhan baynu noqonaynaa xusbigana de inteennan ayuunbaa ka mas-uulayay inta caawa ay nala midka ama heer gobol ama heer golo wasiir ama musharaxiinta ay naga maqan ayaa ka mas-uula. waxaynu u baahnay markaa sidii raggii horeba uu yidhi waan u mahadnaqayaa anigoo magaca xusbiga ku hadlaya barasaabada gobolada ee maamulka gobolada iyo guddiyadooda nabadgelyada guddoomiyeyaasha xisbiga kulmiye iyo mas-uuliyiinta heer gobol ee la shaqaysiiya heer degmo iyo heer tuulo sidii aada iyo aadka u ballaadhnay ee cid waliba ay u qirtay ee madaxweynaha gobolada ilaa bari ilaa iyo galbeed loogu soo dhaweeyey. haddeerta hadalkii raggaa yidhi waxaa lagama maarmaan isma dhiganayno laakiin waxaa xaqiiqa barnaamijkeenu halkuu marayay barnaamijkooda halkuu maraya inay kala jaad tahay. waxaana aynu u baahannahay arrimahaynu ka hadlaynaa hadda wixii ka dambeeya waxa weeye maxaa qaranka aasaas u ee aynu xusbiyada mucaaridka oo gaar ahaanka wadani ku kala duwannahay. waxaan ogahay anigu markaa imika burcoo kale markii aaye laga waayay in barnaamijka imika laga wadaa inay tahay reer hebelow reer hebelada kale la soo hadal. xisbiga kulmiye maaha waynu soo dhaafnay innaka in reer hebel lala hadlo. ninka barnaamijka maraya inaku halkaynu maraynaa waa kala jaad. waxyaalaha aasaasiga waxaa ka mida maalintii dhaweytana aanu shirkii ka sheegnay arrimaha qarannimada xisbiga wadani meel la kama wada socono. isku jihaba ugama jeedno waayo qarannimada waxyaalaha aasaasi u qarannimada waxaa aasaasi u in qaranka laftiisa qarannimadiisa la difaaco. haddii uu jiri waayo qarannimada la difaaco ilaa iyo halkan meel hargeysa ku dhow lasoo qabsadana reer hargeysana dabadahay u yaacayaan ama dabadahay u baxayaan oo way qaxayaan. laakiin waa in qarannimada dalka la difaaco qarannimada in dalka la difaaco xisbiga wadani isku meel kadna ma jiro
waxay ka taagan yihiin qarankii wuu jabay waxay ka taagan yihiin muuse waa laga adkaaday ma muuse laga adkaanaya mise qarankaa laga adkaanaya la muuse waa qofe cidda la difaacaya ma muuse ya miyaanu qaranka ahayn qaranka in la difaacayo meel la iskagama jiro isuma dhowin oday ninkii odagaya jiray Soomaalidu waxay ku maamaashitay guurtidii arrinka golaha yaalla marka laga hadlo ee aan aran u ekayn laga hadla waxay odhan jireen seeftu galka mana leeka oo mana eka arrinka ay ka hadlayaan qarannimada umana eka galkeedana ma leeka qodobka labaad waxa weeye waa heshiiskan innaka Itoobiya adduunyada waxaa ka soo horjeeda dalka Soomaaliya waxaa kala horjeeda dalka Djibouti madaxweynaha Djibouti dal kale oo ka soo horjeeda male toddoba dawladood baa geeskan Afrika ku nool oo la isku yiraahdaa IGAD toddobada mid ka hadlaysa oo leh heshiiska Soomaaliya iyo Itoobiya waa xaraan waa sharci darro nabadgelyada mandaqada uu ka soo horjeedaa ma jiro ra'iisul wasaaraha Itoobiya shirkii ay intii dhawaato ugu ballaadnaa ee Shiinuhu qabtay oo aan u maleynayo kii labaadba inuu noqonayo oo dalalka Afrika qaaradda Afrika madaxweyne ra'iisul wasaare dal kasta madaxdiisa lagu casumay goluhu ka sheegay wuxuu yiri dawladda Shiinaha waxaan ogeysiinaynaa heshiiska annaka iyo Soomaaliland dhaxmaray wuu soconayaa waanu fulinayaa dawladda Shiinuhu ma jecla kamay saxdal waxaan u baahanahay markaa arrinta qaranimada ka jirtaayo heshiiskaasi ninka siyaasiga ah ee maanta doonaya inuu dalka Soomaaliland musharax ka noqdo ama madaxweyne ka noqdo ama xisbiga siyaasiga ah ee heer qaran ah ee dalka Soomaaliland maanta ka dhisan arrinka heshiiskii Itoobiya iyo Soomaaliya laba kelmadood oo qura laga oran kara siyaasiyan cilmiga siyaasadda inta laga ogyahay kumaanku sanadood adduunyada soo martay Itoobiyadan aynu jaarka nahay iyo dalka Israa'iil taariikhda dhigani waxa weeye 2003 oo sanadood bay taagnaayeen Itoobiya iyo Israa'iil iyagoo dawladda heshiisay wada galeen taariikhda taxanaha ilaa intaas oo leeg laguma hayo heshiiskan oo kale macna saddexaad qof u sameeya ama waa inuu qofku yiraahdaa waa heshiis maangal ah macquul ah qaranka Soomaaliland ama qaranka la midka saxday dal siyaasadeed dan qaran ayaa ugu jirta ama inuu yiraahdo waa been waxba kama jiraan madaxweynaha imika jooga soo galay wuu inagu khiyaameynaya been uu inagu sheegay labada wixii aan ahayni dhadigna ma halabna ma mangal siyaasadeedna maaha arrimo soo marayna maaha xisbiga wadani uu diidan yahay hadduu ka diidan yahay qarannimada Soomaaliland uu diidan yahay marka waxay loo baahanahay ololaha doorashada dadka hadhow ta hadlaya ee wax sheegaya ee dadweynaha barnaamijyada siyaasiga ee xisbiga gelinaya waa ragga iyo hablaha halkan fadhiya buugaagtii ayaantii dhuwatay intii la siiyey mooyaane inta hadhayna isniinta haddii alla yidhaahdo waa la keenayaa gobollada waa wada geynaysaan bablaashakana waa loo akhriyayaa guryaha iyo barnaamijkoodaasna waynu gelaynaa innakuna guryaha qaybaheena ilaa iyo heer tuulo weynu qoys baynu daadejinaynaa barnaamijkaasi barnaamijka shaqo ee la isaga imanaya ayuu noqonayaa xaqiiqada rasmiga waa tii maalintii dhuweyto madaxweynaha iyo wafdigii hogaaminayay lagu soo dhaweeyey ee maxaan ku dhahday gobollada bari ilaa iyo galbeed maxaan ku dhahday ka dhacay waxaynu doonaynaa markaa mana isdhiganayno barnaamijyadeena siyaasiga ana si qurux badan oo wanaagsan oo xisbiyeysan baynu maxaan ku dhahday oo hogaaminaynaa
أدي أدنى مع سنتين أدي أدنى نقوم هالنقيا مسؤوليتها والله هي حبلها أدي أدنى نقوم هالنقينا برنامج كي تكاد حقيقة بيسان دوينا كوض هالضينا دوينا أنا كوح نكوك على ضبحنا برنامج تفتران أو ديارسان oo laga fulinayo gobolladii degmooyinka aad iyo aad baa u wanaagsantiin